إمامك إمام محمد يوسف مدحين علي مهدي رئيس جيدي وجاسكا يو أنت سنة الموسى السعودي صاحبك اللي بعنا سنة هذا أضياشة قبلها شرفت له لأن يرى دوبك أنت وين سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفك يسوع يوم غياي شوفه جعل له وجينا ما شاء الله كلام مقنا ما شاء الله سلام الإسلام كذب كنت آد يعني رغم هذا علينا مدحوينه قلب ممكن كستو سفر كيزدك دقاها يو سيدة ديران كالقعدتويدة له walaaltinimada leh eheltinimada ee loo soo dhaweeyay dareenka lagu muujiyay inta waa ka mahad celinaynaa waxaanan leenahay ugashaan Allah ka dhigo gobol sharafeed oo guuleysata oo hadafkii laga lahaa ku guuleysata ilaahay ka dhigo runtii waxaan u arkaa inay tahay gobol xilligii loo baahnaa ku soo aaday waqtigeedii timid in la raadiyo nabad in la raadiyo in la ilaashado wixii la haystay ee lagu soo mitiday dalka laga soo maray dadka in la xasuusiyay qayb ka tahay in la yiraahdo wax kasta waxa ka muhiimsan soo jireenkii dadkan ay lahaayeen haday tahay nidaam siyaasadeed haday tahay mid dhaqan haday tahay mid bulsho haday tahay mid diineed in la ilaashado oo dadku ay iska fadhinin oo hadii maaragtay siyaabo kala duwan dareenka loo cabiri jiray waxa laga yaabaa in qof iyo keli iyo koox iyo xisbi loo cabirayay laakiin dareenkii wada jira in la cabiro waxay noqonaysaa fariin muhiim ah oo cidii dhaga qabtay ku dhacaysa dhagaheeda ayay noqonaysaa waxaana shirkan la keenay waa solidarity-daas iyada ah oo ah in ilaashano nabadda in ilaashano nidaamkii dimuqraadiga ee dalkan ka jiray oo dadkaanu bulshadana ay u ahayd saldhig u ahayd iyaan rabnaa in la ilaaliyo in qoro isku dhiibkii sidiisii u socdo in nidaamkeennii dib u heshiisiinta iyo geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya sideedii iyo wadadii uu haystay gaabis oo ahaa laakiin wadada in laga leexiyay diidanahay gobashan waxa soo dhan ayay ka turjumaysaa waxay ka turjumaysaa aqli celin ku dhisan dib u heshiisiin iyo midnimo ka turjumaysaa taasaana bilowgeedii dhigteen dadkii mudnaa oo dhigi lahaana waatihiin taas intaas ayaan ka leeyahay gobasha in la ilaaliyo marka qaarkood adigoo wanaag ka shaqeynaya oo u jeeda inaad wanaag ka shaqeynaysaa waxa la leeyahay waxa loo rogi karaa warkaagii iyo wanaagaadii inuu yahay inuu soo wanaag ahayn loo rogi karaa waxaas waxa la yiraahdaa wala isbarbagaama wala isshataana saana u dhahay xaafada marka waxaas in laga digtoonaaday waxa tahay oo gobasha aan laga been fariimin oo aan laga been sheegin aan arkay baraha bulshada isdhex socdaana waxyaalo kala duwan la aqrina hadda koora waxa la yiri nabiga kaleey salaam wuxuu yiri Amar ibn Yasir waxa dili doonto yiri fi abaaqiya dagaalkii markuu waxa dhacay culimada aad u yaqaanay Muawiya iyo Ali u dhaxeeyay Amar waa dhintay markii ciidanka Ali oo ka tirsanaa waxaana dilay ciidankii Muawiya dilay Muawiya waxa la yiri nabiga kaleey salaam gar daranta way cadahayo nabiga kaleey salaam wuxuu yiri Muawiya Amar waxa dilaya qola gar daran aniga ma dilno dheer qoladii gurigiisa ka soo bixiso goobta dagaalka keentay aad disho dhahay inaad aqli badan oo hay daahiyada Arab yiraahdo Muawiya ibn Sufyan marka anaga dib ma rabno dhibaatana ma rabno nabadaan rabnaa nidaam dimuqraadiyan rabnaa dib u heshiisiinaan rabnaa laakiin cidii intaas diiday dhibka ayada wada anaga ma wadno ayada wada in la yiraahdo waxaanu madaxweynayaal ay joogaan oo qor isku dhiib nabada xukunkii talada ay ku wareejiyaan oo la yiraahdo lama wareejinayo dadkaanu dhibkaas ma leh gardaradaasna ayada ma laha Soomaalina garnaqsiga waa u jeedaa ayadaana kala xukumi doonta oo kala xukmi doonta waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho oo u maleynay ajandayaasha shirkan inay ka tahay waa meel saarinta maqaamka magaalada waa muhiim magaalo saddex
milyan ku nooshahay iyo ka badan oo aan maqaam lahayn culaysay nagu tahay culayskaasna in muddahan soo haynay intaas ka badanna lama xamili karo waa inay shirkaanu waa in go'aan masiiri ah oo arrintaas la xiriira oo shirkan ka yimaado taasna waa rajaynaynaa oo aan helno madax lala xisaabtamo la doorto dadku ay la xisaabtamaan oo ay maqaam ku fadhiyaan madasha siyaasadeed ee Soomaaliya isugu imaanaysaan u baahannahay deegaanka inay ka timaado taasna waxaan isleeyahay waa midda loo kaga fadhiya halkan oo nabadii iyo maaragtay gobasha ku xariirsan sidaas daraaddeed ayaan rajaynayaa arrintaas fariintaasna fariin muhiim ah oo aan madasha aan ogahay inay qayb ka tahay inaan la wadaaga keliya oo iska xasuusiyo iyo inaan ku garab taagannahay gobashaan inay tahayna waa xasuusinayaa aad iyo aad war dheer meeshaan lagama rabo aad iyo aad u mahad celinayaa sida naloo soo dhoweeyey iyo sida aan qayb uga soo noqonnay iyo taageeradeen aamuudin intaba